بسم الله الحمد لله رب المشارق والمغارب الذي خلق الإنسان من طين لازب والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka khayrka jecel mar walba aad baan idin salaamaya. maanta waxaan ka hadli doonaa Falastiin oo Google Maps ay ka saartay versionkii u dambeeyay. arrintaas ma arrin run ah mise oo been? taas ayaan wada ogaan doonaa. la rabto inaad ogaato anaga dheeraan. sida aad og tihiin, waxaa dhacay laba dagaal oo waaweyn. dagaalkii koowaad waxaa lagu jebiyey Jarmalka iyo xulafadii la socotay. dagaalkaana waxaa lagu burburiyey dowladdii Cusmaaniyiinta ahayd ee ka wada talinaysay ka soo bilow Turkiga ilaa iyo Masar ka talinaysay, iyo intaa wixii u dhaxaysaba ayaa cagtara la simay oo dowladihii inta la qaaday gumaysi loo keenay Syria iyo Falastiin iyo dhulka intaa Sham inta la isku yidhaa waxaa gumaysi cusub baa u yimiday. Ingiriis, Faransiis kuwaasaa ka talinayay. markii kaas uu dhammaaday, gumaysigii uu dhammaaday, waxaa la galay dagaalkii labaad ee adduunka. dagaalkii labaad ee adduunka markii la galay waa laga soo noqday. UN-tu waxa ay keentay arrin ah yuhuuddii degganayd Yurubta kale in la keeno bariga dhexe. welibana dhulka iyagu lahaayeen maahe Siinaa bay iyagu lahaayeen. haddii caadi ahaan iyo Masar haddii la rabo inay halkaas ayay tegi lahaayeen, laakiin waxaa la keenay dhulkii Falastiin baa la keenay oo 1947 ayaa UN-tu waxay ku dhawaaqday in laga asaaso Falastiin dowlad Yuhuuda iyo dowlad Falastiin la iska garab asaaso oo isdhex dego. Yuhuud way yeeleen, laakiin way diideen Falastiiniyiintu, waayo maadaama dhulkoogii ayaa la keenaya dad ka baxsan oo iyaga dibadda uga imanaya, hadhowna hadday ku awoodaystaan iyaga kula tartami kara sida imka maanta socota, in dhulkoogii imka la qaato, in laga boobo. 1900 sanad kadib 1948 May 14-keegii waxaa lagu dhawaaqay in laga asaasay dhulka Falastiin ee muslimiintu leeyihiin, in laga asaasay dowlad Yuhuuda. waxaa ka dambeysay kala haataa 4 bilood oo muslimiintii xilligaa joogtay ee dowladihii muslimiinta loo yaqaanay League of Arab ama Jaamicatul Carab ayaa iyaguna waxay 4 bilood kadib iyaguna ku dhawaaqeen inay Falastiin ay halkaa dowlad jirta ay ka tahay, oo Sebtembar 22-keegii isla sanadkaa gudihii. laakiin tallaabada waxaa ku horreeyey Israa'iiliyiinta ama waxaa ku horreeyey Yuhuudda. laakiin UN-ta halkeega lagama ansixin, oo waxaa la ansixin doonaa 1988 baa la ansixin doonaa. intaasoo dhan waxaa la rabaa ilaa iyo intaa Yuhuuddu meesha ku adkaanayaan oon laga qaadi karin inay gaadhaan. oo haddii 1948 Sebtembar 22-keegii markay yimaadeen, haddii loo dhawaaqi lahaa inay Falastiin meesha leedahay, waxaa laga eri lahaa meesha Yuhuudda. intaa waxaa ka dambaysa dagaallo kale oo la isku dayay in Yuhuudda meesha lagaga bixiyo. dagaalkan awood Yuhuud ma lahayn, laakiin waxaa la dagaalamay mar walba Maraykan. markastoo Yuhuudda la taabto, Maraykan baa meesha imanay, dhulkiisa iyo ciidankiisa meesha ka dagaalamay. waxa uu qabsaday Yuhuud, waxay qabsadeen Siinaa, way qabsadeen Juulaan, way qabsadeen oo Syria ah. Siinaa iyo Masar oo garanaysiin, waxay qabsadeen Juulaan oo Syria ah oo dagaalkii 6 cishaa loo bixiyey. sidoo kale waxa ay qabsadeen West Bank ama الضفة الشرقية
qaybta shishe ee Jordan bay qabsadeen ee ku jirto walibana muxuu ahaa masjidkeena sharafta leh ee Qudus ay qabsadeen intaas iyagu dantooda ma laha kale haata ma aha inay Qudus iyo Falastiin gacanta ku dhigaan intaa waxay uga socdaan in ka ballaaran oo u dhaxaysa labada wabi ee ah Niil iyo Furaat marka imse dawladood ba laga dul talaabsanaya Masar Sacuudiga Iraq Syria Jordan Lebanon Falastiin intaasna oo wadamo muslimiin weeyaan intaana waa in loogu talagalay in hadhow kolba siyaasad laga qabsado imika Falastiin waxa laga saaray maabkii tana waxay ka dhigan tahay dawlad jirta maaha waayo haddii ay Google Maps yiraahdeen waanu ka saarnay meesheedii waxyaalo kale oo cusub baa soo socda in hadhow loo wada bedelo dhulka dhan Israa'iil maalmo dhaweyd waxaad arkayseen in kolba sidii loogu soo siiqay Israa'iil inta ay ku bilowday iyo inta maanta ay socotay iyo inta ay hiigsanayso inay kala duwan tahay waxay ku bilaabantay sidii muxuu ahaa waxootiyaro naqnaqan oo meel degan imikana intay dhulka haystaan xitaa Falastiiniintu ma haystaan dhulkooda waa lagu gumaystaa xitaa Falastiin magaalada weyn oo Gaza Yuhuudda ayaa gacanta ku haya waxay ku hayaan gudoomin adag bay ku hayaan laakiin ragga halkaa jooga iyo dumarka halkaa joogaba iyo dadka halkaa jooga gebiyahaan kala saari maayaan rag iyo dumarba waa dad u halgamay diintooda iyo dhulkooda u halgamay waxaan leeyahay barakallahu fiikum aad baad u mahadsantihiin ilaahayna khayr idinka siiyo dagaalkaad ku jirtiin hana idinku guuleeyo intaa haddaan ka soo baxo taariikh yar oo gaaban oo aan kaga hadlayay intay qabsadeen iyo inta ay u socdaan haddaba tallaabada annaga muslim ahaan maxay tahay horta lambar 1 ka damqan oo nu diidno arrinka maanta dhacaya lambar 2 in aan wixii gacan ka qabanno maanta waxaan wada isticmaalnaa telefoonada aan naqaano telefoonada maskaxda badan leh ama smartphones waxa loo yaqaan waxaan inta soo doonaa insha Allah ta'ala qaabkii aan waxa buurtigi lahayn arrintaas kullee way dhacday oo maabiski dib loogu soo celin maayo laakiin application kan hoos u dhigay qiimaha muslimiinta in isagana qiimihiisa muslimiintu hoos u dhigaan ee looga baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرحيم إما كلي حنردين دونا عدينتي وحن فردونا إن شاء الله إنترنتك كدب وحن تجينا جوجل مابس halkaa searchiga sare waxaan ku qoraynaa Palestine sadarkiisiin Falastiin waxa lagu bedelay Israa'iil waana qorshe lagu talagalay in muslimiinta dhulka ay leeyihiin laga qaato ay inta badan bariga dhexe waana siyaasad laga soo taliyay oo laga soo fikiray ka hor intaana wax la sameyn oo lagu soo talagalay baan oran karnaa markii Yuhuudda halkan la keenay waa ku talagal bay ahayd in sidan ay u galaan sidan ay sameeyaan insha Allah markaan waxaan sameyn doonaa qaabkii annaga nagu waajib ahayd inaan sameeyno oo ah inaan falka celinku maadaama dawladda xoog badan oo ka jawaab arrintan u hayn sida labaad dawladda islaamiyana gacanta ku haynin waxaan sameyn doonaa insha Allah waxaan tagi doonaa Play Store-ka waxaan ku qori doonaa halkaas sare Google Map haddii aan fududeeyo qaabkan imkaan iga uga arkoosana waxa weeyaan inaan idhaa application kan aad meesha keenteen waa application xun kana taqyiimka ama muxuu oran karnaa ratingka ama isticmaalka bahalka buu hoos u dhigi doonaa inta badan dadka caadiga iyagu waxaas inta badan uruma hayaan inta badan muslimiinta war waxaysa oo wararka inta badan iyadoo laga sheegay inaad maqli weydaa suuragal laakiin inaad ku arki karto YouTube-da sidan halkan oo kale marka adiga waxa kugu waajiba hadaad muslim tahay oo ka damqanaysa arrintaas inaad sidan samaysid waxaan samayn doonaa insha Allah markaan tagno waxa ku qoran Maps Navigation and Explore
waxaad tegi doontaa halkaa what's new ka hooseysa waa ratingkii waxaad taaban doontaa xidigta dhinaca show xigta kadib wuxuu qoranayaa post garee ama muxuu ahaa ra'yigaaga ka dhiibo toos wada post gareyn kartaa adiguna waxba odhan okay thank you يقول أنا أحب أروح بوست كرين كريس sidoo kale wad ibid gareyn karaysaa ayaa waxaad oran kartaa imika halkaas oo kale for Palestine halkaa baa hashtag ka dhig salaan ka dhig good kadibna post taana muxuu ahaa waa qaab kale oo uga jawaabi karto muxuu ahaa inaad ratingka taabato kaliya aad kadibna post ila تكلمنا إن أدي بتراث أو هذا القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.